qof walba waxa uu ku riyoodaa inuu noqdo hooyo ama aabe, waana hamiga ugu sarreeya ee qoys cusub loo yagleelo. Waxaa iyana aad loo jecel yahay carruurta mataanaha ah, balse hooyo walba ma hesho oo waa hibo Alle uu bixiyo. Waxaase cajiib ah in xaaskaagu hal mar ay foolato 10 cunug. Waa 1 sano iyo 10 carruur ah. Waana sida ay samaysay Goysam Satule oo xalay jibisay rikoorka dhalmada adduunka. Si aad wax badan uga ogaato dhacdadan, like saar bogga Maxamed Muuse Tarsan, siina faafi warbixintan. Mahadsanid. Goysam Satule waa haweeney 37 jir ah oo u dhalatay dalka Koonfur Afrika. Waxay 7 bilood caloosha ku siday 10 carruur ah iyadoon dareemin wax culays ah oo ka badan inay sido 1 cunug ama 2 mataano ah. Warbaahinta ayaa si weyn u hadal haysa gabadhan oo hore u dhashay mataano 6 jir ah. Goysam Satule oo la hadashay Pretoria News ayaa sheegtay in uurkeedu uu ahaa mid dabiici ah maadaama aysan jirin daaweynta bacriminta. Dhakhtarka ayaa sheegay inay dhashay 7 wiil iyo 3 gabdhood oo dhammaantood caafimaad qaba. Waxa uuna ku tilmaamay mucjiso aan horey loo arag maadaama ay booqatay qaybta dhalmada hooyooyinka ee isbitaalka wax yar ka hor intaan qalliinka lagu samayn. Taboha Tastisti oo ah ninka haweeneydani ay u dhaxdo ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay, la yaabna ay la noqotay in hal mar loo dhalo 10 cunug. Waxa uuna yiri, waa 7 wiil iyo 3 gabdhood. Waxay ahayd uur 7 bilood ah iyo 7 maalmood. Waan qiirooday, mana hadli karo wax badan. Goysam Satule ayaa jibisay rikoorka dhalmada oo ay bishii May dhigtay haweeneyda lagu magacaabo Malayn Halima Ise oo dalka Morocco ku dhashay 9 carruur ah.